oo halkii igu yiri haddana aan ku guuleystay oo dee halkii raalli uu ka noqdo waayey waan soo wada hadlaynaa waxaan dareemay qofku inuu sidii ii hayn jiray inuuna ii hayn kow inaanaan yacni waqtigu isiin jirin markaas aniga dhibaatooyin badan ana kulmo waxaan yacni qofkaas waxa maqli jirin qalbigu ka daalay aan qalbigii ka daalay oo dal igu waxa soo qabanaa dhahan waan xanuunsanaya oon qolin ku jiray oon inaan intan earphone gashado maalmaha qaar yacni aan hadan doono kuba xanuustaan wadnuhu xanuunama aan soo kici jiray dhaw saaqiiqayo heesusi iskuulkii bedelan gidiga maanta aan soo kici jiray cuntaho ma doonayo wax kale oo ma doonayo waxa dhacday waan xanuustay horta meel xanuuntan ilaa ilaankaas horta ma garanayo dhakhtar baa leeyay wax ali wax ku haya ma jirto bigur caafimaadkaygu waata laakiin dhibaato jirta buu yahay xabad dhiig ku jira 5 gram baa ugu jira saad u socotay ranta ma baa ka keentaan waxaan dhiig ku jira mini magaajo inta meeyda haddii maanta fursadaan kuu siin lahaa fariintaadan inay gaadho isaga waxa ugu weyn aad u diri lahayd muxuu yahay haddiiba uu ku daawanayo qalin iyo warqadaan kuu dhiibo waxaad u diri lahayd horta kow midda kaliya u weyn waxaan weydiisan lahaa inuu sababtiiga tagay uu ii sheegi lahaa midda labaadna inuu soo noqdo inuu soo laabto wali ani xaqiiqa rajo soo kan labaad samir ba milihida ma disugto qoraalka maxaad iga soo caday iga soo doontay anaa kula soo hadlay oo soo nigu sugay oo ma sugi kareen yacni qofkan bilaadanka wax lagu doortaba samir sakan kule yaa samir ba milihida adoo samir ba ma jiro haddana tantiisan ka fikiray iyo naftiisan ka fikiraya laba wacada dhaxyaalana midun buu ku weeye kuwa laacin maaye nasiibkaaga waad heli kuwa laacin maaye nasiibkaaga waad heli annakayga waan sugi qof samraama waaye waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mid ka mid ah qisooyinka mucaashaqiinta maanta waxay la joogtaa hana oo ka mid ah dadka mucaashaqiinta ee sida weyn jacaylka ay isu dhaafeeyeen weliba saameynta baan sida ii sheegtay uu ku yeeshay hana magacaaga saddexan baad igu bilaabi doontaa maxaad doonaysaa maanta inaad iga waranto qisadaaduse maxay ku bilaabmaysaa walaal waa mahadsan tahay magacay wax weeyaan hani xarir cali walaal wax weeyaan qisadeedu qisa jacayl ninkaaga sheekay raba way kaas haddii aad noo bilowdo sidee xiriirkaagu u bilaabmay waxa jirtay waqti aan imid xaggan markaas Hargeysa labadii xagee ka timaade anigu wadamada kala duwan ma oran karaa ee Afrika ka mid ah way waxa wadamada jaarka way waxa jiray 2013 bishii koobaad ee wiil si walaaltinimo waliba bilaabashadaas ka baranay ayaan isbaranay intii hore walaal baan ahaan xiriirkaygu xusii socday waxaan ka qaadnay 2013 ilaa bishii 8aad way waxaan wada soconay adigu muddo ilaa adigu xoogaa waxaan kala hadhnay bishii 8aad ee dambe sanadka 2014 way waxa jirtay sidoo xiriirku ku bilaabmay wiilkaasi fiican bar horta isku baranay waan wada soconay waxa jirtay waqti ay aan xagga isugu xafadooga joogan aan deganaa anaan jooga markaas waxa jirtay inaan aan iska baranay isagana isku dhawaan jarhaayeen inantaasi waxay deenu si walaaltinimo aan isku baranay inantaas una saaxiibti saas ku dheerna oran kareen laakiin dad iska warhay mar walba wada jooga oo in yar ku saaxiibooy oo noqon kartaa waxa dhacday anagoo inantii aan sidii u wada soconaa inankina sidii wada soconaa ayaa habeenada kamid ah inantii suuqa ay raacday asagan kulanay maaha de qofku wuxuu oranay inantan waa ayo labadood baa isbartay taha inantan soo isbaran karaan de magacooga iyo aragtidooda waxa jirtay habeenkii marka soo noqonay waxa jirta mar aan mobilkaygu aniga dabkayga dhacon ayadakayga ka wacdo habeenada kamid ah ku dhakeen ka wacday marka waxa jirta magacde ay si khaas ah habeenadii hore aad wici jirtay umu safe garaysnayn habeen ka dambeysay
ayaan arkay lambarkii u seef garaysan weliba magac qaali ah ugu seef garaysan yahay maxaa ku qornaa macaan baa ku qorna macaan ha macaan yaa loo quudhaa dee wallaahi macaan waxaa loo qoran qof agtaada qaali ka ah waay yaa waay markaas anagoo waan weydiiyey horta iyada xamaan weydiin laakiin isagii baan garaacay waan ku uri inanta maxaa kaala dhexeeya inantii habeenkii wada socotiin mayd ahayn ha waxba nagama dhexeeyaan adu sudiin iskahaya baray dee haddaan iskahaya baray lambarkaaga oo seef garaysan waxaanaan arko wallaahi ma hubo ayuu igu uri laakiin inantaas adaan iskahaya baray waa saxyadii baan weydiiyey waan ku uri inankan lambarkiisa ku seef garaysay xagga la saaxiib maalin waxaad jirteen hooyo seef garaynay lambarkeyga iga baxay shuu lambarkiisa odaga garacda u saareeyo kashow hooyadii waxaan ku xarafkii u dambeeyey macaankii ayaan ku seef garayay kadib gadaal baanu arkana kama mandhel garanba waayahay waan iska aaminaano waxba dee umaan qaadan oo waa iskaga dee aamusay markaa hortaada ma ku dhirid karaysa maya anuna aad baan miskiinahayo waxa samrid kale haddii halkaasaa la isku layn lahaa horta maalintaas laakiin aan waxba ma arkin waan iska dhaafo waxaan sidhi dee bilaaba adu si khalda waxa u eegtee waay iska daa waay waxaa dhacday inanti show si ay iskugu kaayo darto inugu kala kaxayso ha ayay raadinaysay waay kowdhe marka waxaa jirtay aan ka ilaaway maalmaha qaar eri igu tuuri jirtay nasiib baad leedahay sababtoo hebel baad heshay ayuu igu oran jirtay maxaad ka wadaa markan ku idhahana markaas igu tiri macnaa way ku ammaani jirtay daa yacni wii ammaani jirtay qof qaariyaad heshay bay oran jirtay anuu nasiibba uma yeesho qof noocaasana barto ayuu igu oran jirtay iska heli aan kaftahaan ugu oran jirtay isu samir wala iska helaaye waxweyn maahan macnaa isaga ku ammaani jirtay Haayo, waxbaa dee- dareemaysa laakiin dee niyadad marna waxba soo galay shaki hayo shaki baa soo galo waxaa waan sidhi mala naagto iyadaaba ninka warrabta yaa waxaa jirtay sidii iyadoo show iran marka ay jaar haayeen iyaguna ay saaxiib haayeen oo anaguna ma isku baran iyada ayay ku tiri saan u kala diraba ninkaanu asagan jawqada ku surida iyadana saan u diraba waan diraya sababtoo ah waqtigaas waxaan doonaynaa iska xilli laabto damad laakiin markaa ogaatay haa markaa tan waxba may qaran jir waa tan ii sheegtay ugu tiri saasay tiri habli dee waxaan ku dhaha hadduu asagu u go-ayo unaa khayrkii ii jibinayo asagay u taalaaban inantii kalena kaga baxay waxaa jirtay waqtigii ay sidaa haataba horta way ku guuleysatayoo waataan u sheegtay dee asagiibaa dee la xidhiidhayba kadib waxaa dhacday sidii lai kala kaxayni markii laga fikirayay waxay samaysay inaan baa habeenu imanayay way kusoo heshiiyeenay inaan kala soo kaxaystay waay waxay ku tiri inankan ee saaxiib la socdee dee kaalayo ii raac bal intaan in hebel la hadlayo saaxiibkay marka hadda way dhacdaa badaha waxaa jira imakaa dad badanoo inanbaynan haati jiro inaan soo raacay oranaya ana hebel bay socdeen hebel soo kaxee way dhici kartaa dee marka anugu igamay hayn inaan la sheekaysto inay ilamay hayn inaan barto laakiin waxay iga hayd in anugu ayada un ka jeediyo laakiin dee marka dhinac loo eego tallaabo qaldan bay hayso ani haa waan ka qoomameeya waay waxaa jirtay waan kasii reebay show halkan nagamay dheereen agteeda aanu taagnaa fidiyo ayay iga duubatay kadib way dirtay adiguna iyadaad caawinaysa anaa iyadan caawinayo Iyaduna danteedan wadayba iyaduna way kuu diyaarinaysa haa way u waranta waxay ku tiri soniga hadda maxaa sheegay marka asugu inaan gaabs ka dareemo mooyaane dee imana oran habla waxayso dartay ma oranna waxaase jira goormaad ogaatay halkaa marka inantii bay u sheegtay kale ay ku tusan xalay waxaa sameeyay maad ogeynba waan kala diraba kiina u cadhoonayaabe inantii bay tustay horta waan u qaadan waay waxay ugu noqotay nin wax dar horta la yaab weyn bay ugu noqotay waxaa dhacday inantii maadaba raadiisaan helo waan isku layna dee aan u helaba iga qabstaa kadib waxaa dhacday dhammaan wax leedahay habeenimo ku hebel halkaygu kale waan ku baahan caawaqa waan ku xiis qalbiga waay markaan waxay haysaan u heliyan ka fikiray way ii timaadeen waay gacmaa si saarnay marka xaafadu nooma dhaweyn meel yara cidlaa oo meheradiyo xaswiiro dhawin baheed hortaadkii meel kale waan la gaadho waa intaan si socon waan suu kari waayba halkii waan isku laynay waxaa dhacdoona la qabtay anu waan xanuustay wadna xanuun balan waan xanuustay guriga markii nalgesho anu waan baxay waqti dambana way hayd waxaan iska tegay oman dhaqaaqaybade waxaan ku soo miyirsaday anigoo saldhi ku jira kadib waxaa wareega khamiisaha ay roondada way qafteen show xilli damada qof adugu xilli baran kolley dawaa iska garanaysa kuwaasay qabtay waxa liigeeyay saldhigay aan kusoo biiraabay
anigoo nabaro badan igu yaalaan jirdil badan igu yaalo dharbaaxooyin waa iska dareemaysaa made ayadiiba igaga soo dhacay nabaradan ilkaha sare dhaqaaqan waxyaabo badan ayaan soo miraaban horta waxaan ku hadla wan garan waaye markaan arkay meesha saldhi tahay ayaa waxaan ku hadla garan waaye marka hablo maxaad u dagaalamaysaa ayaad ka fikiraysay maxaa u dagaalantay dee maya maxaaba dhibtaasoo dhan kubdey dhibtaasoo dhan asaga dartii baan u marayba bal waxaad dhibtaas iyo hawsha aad marto ka hor oon laguuba ogeynba aanba laguuba dareensanaynba waxaanan ka fikiraya igu si darnayn saan uga bixi lahaa meeshan iyo sababtaan uga bixi lahaa de sababta wax lagu oranaya waalidkiini garaaco anu taasa igu sii weyneyd ba igu darnaydba waxaa dhacday waxaa yimidna askari xageed ka timid anu kuri ma garanayo xaafidin waa xagge magaalada maxaa halkan ku keenay maxaa ku helay ma garanayo lamarkii xaafidin sheeg ma garanayo kii hooyadaa sheeg ma garanayo kii walaalka sheeg jaarkun sheeg dad garanay ma garanayo taa ujeeda kala hadleedahay bas kaga jir meeshaada yaa dad lamarkii xaafidin garan ilma xalay dhasha garanaye adaa ujeeda kale la iskaga jir bahalkaaga doontii 5 sano ba iskaga jir ma iskaga jirayaa baan idhaanu marka anu waxaan ka fikiray maskaxdayda dhowr jeer isweydiinaysa kolba su'aalaan lahayn qaadanaysa talo meeshan saad uga bixi ilaa sabab la raadinaya hooyo hadan garaaco xaafadii garaaco dee lay imaado dee halkaas lagu fadhiisinay wax lagu oranay sababta lagu soo xidhiy sababta waxaas ku hela sheegday daan xaafadeedana ma oran karo heblaan isleen heblina marka meesha ka maxaa isku hinlaysaa dee waxay oranaysaa hebel balas sheekad ku dhacday daan waxaan diidanay yara fool xumay heedo hebel balas nin dartiba isku laayeen banka cararay marka waxaan sameeyeen garan waaye waxaa jirta inaan baan ku maalin u yaadhaan saaxiibaan ku ii kaale walaal way ii timid waxaan sameeyay ma garan arrintan ka simaraysaa maxay ku dhaana askarsan marka in yar waqtiga la siinayaa oo qofku kuma soo galayay dabadu ka istaagay maxay sameeynaa waa maalintii ugu horeysan oran karo saldhi aan galay ugu horeysana waa ban baqanaya waxaan u haystaa baan dib sad khalaas ku dhintayba way atay ku tiri aan horta kaartan soo dejin waxaan koranaa saasa jirta xafidin ma sheegi karane deynasida inaan baan markaa u yeedna askariyada ilaaliya dadka sanqubna waxaasa walaal jiray maxaan u sameynaa wuxuu anu waxba inagama qaban karaye taliyaan inii geynaya soo daaya baa la idhi waa la geeyo oon warramay ilaahay baa kugu og burmina intaa tahay mise wax kale xataa laftarkaygu uri ninka waad u badheedha inaad isku laysaane xaafidin haba ogaatee dee garaaca reerkiina anigu reerkiina waad garaacdi mooyaane lugsi deymnayo may ma garaacay baan warigaga celi halkaygibu ku uri aniga waa dib la xidhayo warwer oohin waxba kuma tartasho ilaa wax la ooya markaad naxariis iyo waxaa dareemaysid wallahi afkaa juuqa gabay waan iska aamusnaa saacadan baan yaabana isla talo maxaad ku hadli maxaa ku dan markaas qof kasta ku wareysanaya hable walaal maxaa lagugu soo xidhay yar qorfada baateen yar sanaabatee oo ogaa xaaladda haysatay iyo dee waxaan ku dhibtani haysataba haddana waan u yeedhay mar labaad inaan kale walaal anigu ciidan garaacaya walaal mijta xaafadda xaga ma joogto beenba waan ka dhigay aabana marka ma Itoobiya ugu maqan yahay bal si weyn dhaha mar labaad tulisay adoo horta dirqi la sii daayay dirqi wala igu sii daayo cagaha nabaradiga dhiigu sii daayay ma garanay waxa ku dhacay ma socon karayo ma fadhiisan karo xataa fadhiga igu dirqiha wallahi haddana inanteedii saas dhan xanuunsanaysa ismay dareemin guriga qabo balaayar oo nafis ismay orane anoo laba kawada dacsi meel ka sii xidho oradan meherada ugu galay maxaa jira maxaad igaga aamustay maxaa dad naagtan dad rabtid ambaad la sheekaysatid aad igu sheeg weydaad oran weyday inay xidhkan intaas ku eeg hay soo dhamaaday haniye inta ka badan ma soo karano maya bigoori anu waxaan ogahay ma jirtay waxbaad ogtahay baa la waxay Soomaalidu waxay ku mahmaaday buuri waxay urku ku hayso afku ka xada dadaba wax ogaan wax ma ogiye wali waran de maxaan ogaan ku raad bood ogtahay dad macallaftarkin furiga sheegso ogtahay soo wax u bareeray ma han bigoori wadano bareeray miyaan ogolaan 2,000 furiyo layga ka keeno adoo horta hadal xun adoo waxaan yacni qof dumar loo qoori karin oo qalbi jameeran ade ay halkii igu yiri haddana ku guuleystay oo de halkii raali uu ka noqdo way waan soo wada hadlina waxaan dareemay qofku inuu sidii yahan jiray inuu yahay ko inaanan yacni waqtiga siin jirin markaas aniga dhibaatooyin badan ana kulmo yacni qofkaas waxa maqli jirin qalbigu ka daalay aan qalbiga ka daalay wada la igu waxa soo qaban waan xanuunsanaya oo qolun ku jiray oo inaan intan erfoon gashado maalmaha qaar
yacnihii aan hadan doono kuba xanuustaan wadnuhu xanuunaba aan soo kici jiray dhawa saa qiiqayo heesusi isku kii bedelan gidiga maanta aan soo kici jiray cuntaho ma doonayo wax kale oo ma doonayo waxa dhacday waan xanuustay horta meel xanuuntan ilaa ilaankaas horta ma garanayo dhakhtar baa leeyahay wax ali wax ku haya ma jirto wiigu caafimaadkaygu wataa laakiin dhibaato jirta wiigu yaxba dhiiga ku jira 5 gram baa ugu jira saad u socotay ranto ma mii baa ka keentaan waxaan dhiig ku jira meel magaalada inta meeyda arkin ba halkii baa dhiig iyo leeyahay irbada la soo qoro oo horta ma ladnaaday de wax xanuunka la igama hayaan fikir kan badan iyo maskaxdayda eriya inay qaadi karaan u dhiibayay iyo de su'aalahan isku dilayun iyo cunto la'aanta iyo qofkeeda waa iska dareem kartaa ayaan iskaga xaadin ayaa sababay inaan ku dhiig beelaa xanuun kale dama qabin taanbanha waxa dhacday in horta sidii la soo hadlayay aanu wada hadlaynay aanu wada socnay aanu sidiis laakiin de waqti waxa jirta habeenada qaar 12 saacadood ku wada jirnay mobilka amba dabko dhaca amba khadka goomoy sabab u kala goomoyeen aanu jirta asoo shaqeyn u jeebka gashin jir yuro jira ka bixin kawdi wixii aanu bartay ma waay horta oo dareemisa qofku waxaad uga baratay markaad ka weydii isbedel ba dareemisa maaha waxaan waayay wixii aanu uga bartay waay waxa jirtay inaan aniguna markaste meheradun hor taagnaado badi yacni aan soo eega halban ku sheego waxa raadinaya inta sababtan aan ugu tagay waxay tahay sababtan uu ku aamusay maxay tahay daaslaysan waa tageyseen haduu gaabsado way u tageysay laakiin soo qofka marna bay iga soo wardoonay mehen heer hadda waxaan arkay gabar soo garaacaysa oo hablo magac qaaliga xataa ugu qorin asaga ma weydiinin hada weydiinay ya waxa labad kala tagsan dawladis waxaad ka baqatay inaa xiriirku burbur waxba weydiin baa sidii asagoo yaran xamoolku yara waqti waa walaashaysan guri waa caadi iska day naga dhigo amba ka qabayn deen sheekadeen si wadana ya aan waxaan ka carari waan heli karay muxuu u qiil sameeyay marka ya muxuu macnaha mar haduu arkay qof meel kale oo socdo waa ugu sii qiil sameeyay sabab ugu sii qiil sameeyay waa maxay wallahi yunu ka tigno qofka yeedan kala fogaano umbu qalbigayga deeyay nafteedu ugu qasbisoon waan heli karay hadana markii aan wax dareen amba wax jacayl meesha oolin waxa laga yaabaa inta badan dadku isku qabsadeen hablay lambarkayga iyo naagtan waa maxay iyo ninkan waa maxay baa la isku qabsadaa waan heli karay laakiin waxa si adigu bal ka raano ya wala kulana soo arkay dadka de mid soo kugu dul qaatinta soo arko garaacdo ku tiraado war waayo dan inta siman ka cararay marka waxa dhacday adigu soo wuxuu gaabsadaba habeen biigu dhan ku imanaya hayay kaalay waxa jirtay anigoo sidii u sugaya ayuu oray anta meherada bacdlaayo nimadii baa kala tago walaalkum ay man karayo eemin damay noo gadhig haye waayahay waa sax baan ku oray habeenkii ku xigtay kale noqotay maxaa kugu dhacay hooyo xanuunsan saas leejigeedo ma ku iman kari hadda habeenkii la wada garsan habeenkii saddexaad bay noqotay wallahi de kuma iman kari maanta de wad ka garsan marmarsiyo kale waxaan ku waxba hay iimane adiga inta ka soo go'ayso iyo maalinta tiraadu waan ku imanaya ii kale aan maalintaas ma ku sugayaa baan ku oray hayay goori de sidii qof aad sugaysa ka waran haddana uma dul qaadan jirin oo soonigi ku sugayay baan u qori jiray mararka qaarkood samir ma jiro de haddana ka aamusnada 4 saacadood saacada kale kuma aamusnaan karin de oo intaas kuray lagu hayso saacadiya balanteen markay dhaafto koolka soo dhaca malaha waa asagay farinta yar ay soo dhacda malaha waa asagay ima ka fikray lambarkan ilaalin jiray ya wana kala qaani masri maraha markuu soo wacay marka kale wadnahayga ka dareemi jiro wallaah ya markuu soo garaacay iska daa asagay maanta meel xanuun waxba ka qaban la marka kale di yacni niyo ma hayn dadka kale aan ka qabto markuu ku soo waco maxaa dareemi jirtay wallahi farxad fudayd markaasaan gabadhaydii maanta la lahaa waxa qaban orogjeed waxa ma qaban karayo fududaanaysa markaas hal daqiiqo wixii bala noqonayaan waxa jirtay markuu da waqtiyada qaar aan doonsan u ilaalin jiray mobilkan suurin jiray daasaga ku soo wacayaan baan u sugayay waa fariintiisoo kale dawaan in meheradii ugu tagayaba ya 5 saac 6 saac kama waa adkaysan karaba ya haduu maqnaado wadiga warwaraya oo haduu maqnaado waniga warwaraya laakiin aniga leeyma ogaaba wabaleeyay waa xilli dambe inaan baa tahay maxaa ku soo saaray wabaleeyay
aniga maskaxdayda ma joogto intaan waqtigan soo baxay aan u tagayo laakiin asoo waa wii la yaabay maxaa waqtigan kusoo saaray ayuu leeyahayba anaa ku warwarayo waayahaaga doonay maadaa wariga hela weydiiyo weydiiyo ruux kale waxaan ku suganahay aadoo sacaadadiiso jacaylkaa waxsaar kale laba caddex yaalana midabuu ku weyn aadoo weyn waay de waxaa dareemi kara unba markaas hadduu xaaladda ku jiri lahaa maasir malaha wuu kula dareemi lahaa laakiin suu xaaladda kuma jirin daanunbaa ku jira ku sugnaa waxaa dhacday markan sugi kari waayey maalintii dhimsi ugu dhiibay nin meherada ugu tegay waa kan eriyo xun oonan de ii qalmayno oo qalbigaygu diiday ayuu dhahaa maxaa xilligan kugu soo waday maada inaan hayn gurigiin maxaa xilligan kaa keenay aniga maa telefoonka igala soo hadashay oo soodigan ila hadli laba aan kaalaba soo hadlabee soodigan ila hadli waayey baadi waa la iska sugaa qofka bili-aadanka imad iska kii sugtid maxaase markii kaa qaaday haddii waxyaabaha sababo qaar buu ii raadin jiray qofka bili-aadanka marka la guursanay waxa lagu doortaa buuri samir aduu samirba malid markaa samirkan yeelan waaye waa kusoo doonistan kusoo doonaya miyaa markaasoo kale haddana ma xanaaqi jirin qofka waxaan tala leeyahay ma xanaaqi jirin adigay ku eedeynayaan weliba qiil kuu raadinayaan adigoo adigu jeclaaday aadoo weliba lagugu eedeynayaa doonistaad soo doontay dulqaad mali aadoo weyn maalmaha qaar intaan kaas ka fadhiisto aan iska ooyaa wallaahi oon idhaha talo maxaad ka baranaysa oo qofkan barashadiisa kheyrba kumay lahayne maxaaba kugu watay ayaan ka fikiraa wallaahi mararka qaarkood haddana de saasay tahay haddana qof aad jeceshahay kama maarmaysa jacaylkuna wuu dhammaadaa aniyooba waxaan siri qofka bili-aadanka markuu 2 bilo xataa markii dadku kala maqnaadaan way kala qancaane jacayl waanu qanci leey waan yaabanahayba waa gartay waxa ugu weynaa saaxiibkaa ku dooratay muxuu ahaa naxariis haye naxariis badnaa waxaas oran karay marka waqtigaas waxaa uunkan ku nool asagoo ugu naxariis badnaa wii naxariisan jiray maxaa bedelay ya de wallaahi waxaa bedelay de kulle waxaa weyneen amba asagaa kasoo gada amba dee sabab kala haatee kulle waxaas ma bedele way niyadaadu maxay ugu qanci weyday qofka aanad adiguba kuu warwaraynin ee weliba intaa weerku damqayso kugu yidhi in naftaada go-aan ka qaadato watan garan lay caqliga iyo niyaddu maxay go-aan ku gaareen inaanu samro haddii maanta fursadaan kuu siin lahaa fariintaadan inay gaadha isaga waxa ugu weynaad u diri lahayd muxuu yahay haddiiba uu ku daawanayo qalin iyo warqadaan kuu dhiibo maxaad u diri lahayd horta kow midda kaliya u weyn waxaan weydiisan lahaa inuu sababtii igaga tegay uu ii sheegi lahaa midda labaadna inuu ii soo noqdo inuu kuu soo laabto weli ani xaggayga rajo qaabkaad u dalban lahayd haddiiba xataa dhinacaaga qalad ka dhacay maxaad u odhan lahayd sidaa aynu wax u saxno wallaahi hortaa anu xaggayga waan huba oo hadduu qalad ka jiro waan qanci lahaa waxaan oran lahaa maalintaasaad qalad ku samaysay maxaadeen dee yacnihii qofku laadaaba qalad ku samey kaaga tegay taa waan qanci lahaa laakiin waxaanan ogeyn wax qaladna sameeyaan waxaa tintan soo wada socona habeennaas aan eri xun aniga iga tegin oo igaga xanaaqo isaga mooyaane ya qofka bili-aadanka markuu kaa tegayana anbu doonayso kaaga tagan kuma waayo waddagu kuusoo maro ya maro ku yidhahdo waa dabeecad xuntahay sow kan labaad dee samirba malihidimaad isugto qoraalka maxaad igu soo caday iga soo doontay anaaba kula soo hadlaay oo soo ku sugay oo madi sugi karen yacni qofkan bili-aadanka waxa lagu doortaba samir sakan ku leh ya samirba malihid aduu samirba ma jiro haddana dantiisan ka fikiraya iyo naftiisan ka fikiraya intan taydii dayacaan u duubxilatiisa waxaa jiray maalmaha kamid oo meherada ka fasax qaatay oo asugu inuu iskiisu fasax qaatay inuu hawl kale ku timid ma garanayo lambarkiisu iga bedeshay oo xidhay lambarkiisa khadka kalena hawada iska daayay inamadii meheradaanu tagay hebel xag ku qabtay walaal maanaa arkine waa ka fasax qaatayo dee gurigiibu jira ma wax dhibaa jirta mayaan wax dhiba kumana ogeyn haddiin dabadeeyaman weelan gaadhay anu horta maalintaas waxaan oran karaa maalintii igu darnayd maalintaas ahayd madax xanuun werwer talo maxaa ku dhacay kama fikirayo u kaa tegay
waay iyo adigu suu kaaga qanciyo u tagay waay laakiin waxbaa ku dhacay baan ka fikrayaanu waay naxdin wadnada sii gariiraya waxaa samaysaa baan sidhi maxaa kugu dhawa samayn karta inantii aad kale eesaayin jaarka ahayn u tag waay kadib ayadaa la hadlay waxaan kulmaad garanaysa xaafadood hayo dee in yar baynu isku jirnaa bay igu tiri waay hay aanu tagna baan ku maxaynu samaynaa biti tallaabadan qaadana horeysa maxay tahay waay hooyadiisoo dukaan ma haysato haa dukaanka in tagno waay aynu ku nidhaahno in maxaan ku dhahaye wax naga iibi kadib waynu ag fadhiisana waadikan inuu is garanayaa ilaa heerkaasay ha sheekada waynu kusoo yara dhex darna hebel beryaan xogu ka dhacay waay yaa waay marka waanba inoo sheegan bu inoo sheegi waaye waay wixii baanu ka iibsanay islaantii baan isla yara sheekaysanay isla anus ma garanay inantan waayo waa inan ila socoto halkii bay sheekaysanaya intaanaana gabadhu sheekadii u gudagelin ayuu suri malaa hooyadaa wax weydiiyey kadibka yuu kasoo gal hortuu isku naxu istaagay anna markii naxariisaad arkaysaa soo galo waaba nafisayba karkii isaarna horta waaba iga degayba aragtidiisa kaliya aragtidiisii aan yacnihii aan kaga warwar la-aanayo iyo inuu nabad qabo kadib waxaa dhacday inta saddexaad waan kusoo baradna waxaan ku salaamaynahay nayaa heesuku ninka jooga atinanta ugu tira ma kula taliyahay ninku adiga kuma rabo kawdhahay soo kuu qanciyana dee yacnihii uu raadinaya anu intaasaan isku jirna hadday dhib dhacdo waan maqli lahaa hadduu meel ka xato inamadeedan ka maqli lahaa walaal wax dhiba ma jiraan adigun buu raadinayaa suu kaaga tagayo suu kuu qanciyay mad iskaga hadhid ani qofkani waaninaya wax ii sheegaya waxaan u haystaaba yacnihii dee qof igu darayo oo yacni le iskaga tagta in aniga laygu dirayo marka laleeyahay wax lii sheegan aniga laygu dirayo ayaanu haysta waanada ma deeqdo dadna way coloobeen dheh aadoo waan dhegeysto saaxiib saas ahaa waana hayaana iska daynaya faraa ka qaaday kama qaadayso ma waan garaacay horta isla markii uu furay telefoonka maxaa kugu dhacay waxaad istagtay heer xaafadeeda timaadana ayuu yiri maxaa kugu kalifin maadi oranin baan ku dhan xaafadeeda imaado meelan adiga ku warwarayo isleeyahay waxaas ku dhacay maad ogeynba in xaafadda maxaad kasoo doontay bikuri yani xaafadeeda maxaaba ku keenu taagaybe maxaa xaafadeeda kasoo doontay buu yidhi asna ma ogaam inaan asigii soo raadina dantiisa halkaa usoo marayba saan ma ogaado asna waaba kule maxaa xaafadeedii kaasoo doontay maskaamasa waxaan ku dhawaad kuluushahaye marka soo nafistid ila soo hadal iminkan caadi hayan waqti hayaaye waqtiga yaran haya maad ka faa'iidaysan ayuu guri waa seera canaanto xasidi haniye iminkaad waqti haysatahay bal ka faa'iidayso si aan u dejiyo horta waxaan isku daya inaan dejiyo inta doonta ha igu qaata 2 cisho igu qaata ilaa intan sasabay wanaan raali geliyaa bal inaan la kala gooyin aadoo waan ku guulaystay haddana waan ka waayay qofkii bilaadanka ahaa dee yacnihiisan isku ogeyn naxariistii hadaladiisii intii aan ku aqaano dhammaan ka waayay hadal la yaro jikaaru doono hadal aan ii qalmin bi oranay hadduu doono bilaa naxariisa igama soo wardooni hadduu doono haddaan ku dhaa maanta meel bay xanuunaysa isaga laftirkiisa waqtigii hore warwari jiray 5 jeer bigu soo cinjay sidee tahay maan ku imaadaa waad iska bogsan doontaaye ilaahay baa ku caafin doonaa waa qofkii maalinkaas ku tiraada waa xanuunsanay 5 jeer kusoo wici jiray aadoo baa imin kara kule waad iska caafimaadaysaa wax dhiba ma jiraane wax xanuun saas weyn baa kusoo haya taatan waa iska raxsan waa iska ladnaani saxo ma jiraan waxaa jira inaan horta noloshaydii dee yacni cidhiidhay noqoto imanka tegitaankiisanu iga maqayo markuu ila hadlay jiraaba iga xanuun badnayd hadalka gaagaabsina ereyada xanuunka kula wari imanka ereyada xanuunka kula horta wuu igala fogaaday yaa oo qofka rajo ku noolkaabana waan iska sugaya laakiin markaa ka waran erey aan ka filanay marka lagu dhaho waxaad kasii warwari jirtay markan ka qabanaya telefoonka hadalku ii oran lahaa ayaan ka fikirayaa markaasuu oranay maanta xaggaasoo kale intego masalihiisaasoo maxaa jiro dad baanu israacnay markaasaan oran jiray aan waxaan iska dii jiraan idhaa ma hablayni la socday markaasaan inaan aan saaxiibni hablayn yaxmaas siraan yacni wuxuu raadinaya isagu sababta igaga hinaasin lahaa iska soo xayaa nolosheedii bal ma hadhow marka soo dhamaysato ila soo hadal baan oran jiray waxaa dhacday inaan nolosheeda cidhiidhi gasho warwaro waxaan ku dhahay caqabadooyin badan ay igu noqoto dee oon isqoomameeyo kul barashadiisii kul warkaa waxbarasho ayaan u imiday halkan waxbarashadaydii aan kaba baxayba oo ila soo hadashay inantaan wada shaqaynin maxaa kugu dhacay oonan ku dhahan basug waan xanuustay bal xanuunan dhammaanin ka waran ilaa imankaan ku wado ma iman karaya maalintii dambe ma fasaxan ku wari walaal dee marka meel yaro decoration waxna caseedan ku ma qaban karayo walaal dee iska wadaado hawshaada way ogtahay iyadu laakiin dhibta haysto waxay ku tahay intaad iska cololad agtid
qof kastoo adduunkan waa lasoo dhaawacaya inta iska cololeegta noloshaada hore mad usii wadatid hawshaada mad ka fiiyo jaaniskaad ilagu haysatid waqtigaad haysatid kule waad noqonaysa mad ka faa'iidaysatid anigu jaaniska aan ka faa'iidaysan lahayn sugayana waa asaga aan doonayo inuu marun idhaaho waan kusoo noqday way kan marana qalbigu waa raadinaya waan rajaynaya waxaa jirtay hortaan waxaa qoritaanka waxaas kuma wacnin yaa xataa qoraalka qofka fariinta loo dirayo ayaan ka hoysan jiray waqtiga igaga baxaya inaan cod u duubo amba kool ku qabtaa qofka iga lafdadaan jirta inaan buugag samaysto aan qoro qisooyin waxyaabaha noocaasa waqtiyada qaar anoo ooyaya markan bugaagteed waxay iga dhamaystana aan asaga dib fariin u qoran hayaalaanka majisada oon u qoraa fariintii ugu cuslaa ee ugu dareenka badnayd ee aad u dirta maxay ahayd weli waan ku jeclaa iisoo laabo hadday jirto sababaad igaga tagtayna ii sheeg ay ahayd ma arka yaa uu arkuu dhaafay kagamaan aamusan taas waxaan ku weeday ilaa intuu kasoo jawaabayay wax dhacday adigoo markaa maxay u qoraya yaa ilaa hadalka bilays iisoo laabo haddii wax dhibaatay jiraan amba xagagaad ka maqashay ii sheeg haddaad rabin ii sheeg yacni waan saan ku sugana xaaladeeda ilaahayba og baan ku odhi isaan ogahay cod buu maalin iisoo duuyo waan ogahay buuri inaad jacaylku hayo ad jeceshahay weli laakiin iska samir anna waan kusoo laaban doonaa samir horta intaa waan ku qaboobay ukumanaan jawaabin laakiin waan ku qabay waan kusoo laaban doonaa taasay gelisay naxariis rajo ku gelisay aadoo weyn markaas waxaas ka noqday qofkaa rajo ku noolka ee qofkiisii sugaya ee haddana loo soo laabanaya dee waad arkaysa waqtiga dhan kasoo wareegana waxaa dhacday anigoo taydii la cadibanoo yaabanba oon islehay waqtigan yacnihii nolosha ciriirigu too iska ooyo meel fadhiya ayaa inaan markaa aanan meeshaas ku baranin laakiin anaa waxba naga dhexinaan saaxiibin ooyisay soo garacday marka maxaa kuga dhacay saaxiib anaa ooy sigu tirinaan ku imaado daraba markaasii qasoonkeyga iga sheekaysa anu horta waa ma naxayba naxdintii igu dhacday waa wan gariirayba taydii waxay noqotay waman ilaawatii aniga haysta tiyadii baan eegaya yacni inta qofkaas wuxuu ku sameeyey qof filaadan lagumaba samayn karaaba dee ani waxay ka kacbay noqdeen markaasa waxaan markaasaa u dulhayay waxbaan qoranayay maasooyin waxbaan saa u qorqorayay ayaa waxaa jirtaan saa u qorqorayay markaas kun maxaan sameeya saaxiib maxaan kuu sameeyaa maxaad doonaysaa markaas dee inaad igala hadashid waan la hadlay ima soo garaaci karta ku dhabi guri kadib waxaa jirtay maasa aan qoray waxay ahayd ka dhaqaaq danaystaha qalbigaaga dhaawacay boqolbaa ku dhowrtay qofku dhibaha xiisayn waxba ruux dhibaatiyo dhafar iyo kubada ciil ha isdhihin ka goosee gobonimo kusii dhaaf dhiso nolol la raadiyo qeyrkaa ka dheeree dhexda xidha itaalka guushaada dhaatee calafan kitaab qorin kolba koomaha u gelin ka tag ruuxa kaa tega ayay ahayd markaas intaasan dhiirigalo nugu sameeyay iyada aan ku uri adiga qura maaha aniga ilaa aniga socota ilaa hablaha soomaaliyeed intaasoo dhan lagu sameeyo ayay ka socotaa waan ku uri ka uri markaas iyadu waxay raadinaysa laakiin sababta u soo noqonaysa kula mid baan ahay dhaawac isku wada qaybsana deedna iska rajadaas iskaga noolo haad aniguna doorka nacaskii rajada weliba ana rajadaas iskaga jirayaay way waxaan doonayaa kale inaan ku weydiiyo maanta qaybihii baraha bulshada mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan baad hadda muuqaalkaaga laga baahinayaa uu ka dhex socdaa waalid baad leedahay ehel baad leedahay haddii muuqaalkaaga ay arkaan ma ka fikirtay saameynta ay kaaga imanaysa horta ma imanka mise mar kale imanka ta haysta ka weyn waxba ma arko waxay xafada arkaysa imanka laakiin hadha waxa laga yaaba gadaal hadduu xataa iisoo laabtiyo hadduu saa ku tago ii sheegaba wixii igaga tegay inaan oran lahaa alla talo bisinka xaafadda wataa aragtayo aan anugu ka farfoorsan lahaaba inuu wax jecesha lagu ogaaday laakiin imanka may jacaylkaaga dartii haddeer cidna wejiga malihi wallahi cidna weji ka malihi ina ilaahay way xanuunka ugu weyn ee aada iminka dareemaysa waxay wallaahi horta imankii mar walba marna ma ladnaado intuu siduu iga tegay waayo waxaan qof qofkeedii weyday mar kastana ku fikirto xilligu soo noqon lahay u samir xanuunkan dareemayaa imanka waxay tahay dee talo muu kuu sheego
siduu kaaga tegay. haddii aa ogaan lahayd sababtu kaaga tegay nafta maxaa ku qancin lahayd? waan qancin lahaa, saan ku qanciyaba xataa hadduu xataa laftarkayga anugan ogeyn oo qalad iiga tegin, laakiin laftarkiisa hata haddii kuha iskay baan kaaga tegay dee iskaynta intaas xiriirkeena ku dhamaadeen, de waan qancayaa, qof la qanciyey baa noqonaya. laakiin waxaan ku qancaa ma hayaba dee qof sabab la-aan lagaga tegay waxaan ku qancaa ma garanaya marka. waan gartay noloshaada xiriirka aad samaysay iyo saameyntiisa markaad eegto ma ku tala jirtaa inaad qoftaama baranayn? wallaahi xatuu hadday iisoo laabto iyo hadduu sidaa igaga tagaba lacala dee horta hadduu iisoo laabto waa sideeda, laakiin hadduu sidaa igaga tago ismalihi qof danba ay isbaranaysaa. hataa isbarataana qalbigaagaa siinaysaa. sababtaa qof dambe noloshaada ugu qomaynaysaa waa maxay? dee qof horta waxaan ogayba dadkii aaminteedba inay saas kuu dambeynayso walaa. aniguna waxaan ahay dadka maad aragtay aanan dadka xidhiidhada badan iyo waxaa isku dulwadi karayn. waxaan ogeyna hal qof ku koobnaanayo ima dadka waxay guran weligaa hal qofaad ku koobnayd marka intaad ka jeclaanaysaa qof kale maad baranmay dhowr baa la isku dulwadaabay hablo qaarigoo dhahaan. marka aanu niyaddii baanan haynba anaan isku dulwadi lahaa. marka waxaan ogahay in haddaan lacalla ay dhacdo qof dambe jeclaado amba dee isbarano lacalla mustaqbal dambe inaan saa kan aan u jeclaaday amba dee aan u haa inaanu noqonin xataa laftarkayga hadduu mustaqbalkayga noqdo. qalbigaaga suugaantaad ku qancisay ku madadaalisa maxaa ka mid ah? wallaahi horta suugaanta waa badan yihiin inkastoon iminkaan heesta ugu dhegeysiga badanta horta inkastoon iminkaas waxyaabaha aan qoro inaan aad iyo aada u qaaliyo fanaan ah kuwii dambe ah oo xalitadeen habeen hore ii sameynayay maasooyinkayga inta soo qaaday waxaa jira heesaa waa la kala yardeel jarjara dabcan haa qaab bay leeyihiin markaa markii khaladkaan uu ka dhex saaro iskuulkii bixiyo kadib heesta waan qaaday waana sameyn habeenkiiba isla habeenkiiba laakiin maxaa u haray inaan la tumo haa laakiin fanaanad noqoto haa kadib maanta maskaxdaydan dib aan iskula wareysta horta waxaan ka faa'iidaysaa ma jirta baan ku iri aan siri sababta waxaana dembi ahaynba fanaannimo kaama soo galaysa dee waa runoo dee waa dembi unde iyo akhira la-aano markaa inaan wixii aan hees aan lahaa daas lahaa u qaadaan u gogoynayay inaan maas ahaan u tiriyo unbaan go-aansaday. midda labaadna maasooyinka aad bay u dhaadheeriyin midaynu ka goyon karano maaha waa bowgaag laakiin hal mid baan kasoo qabsanaya. heesaa waxaa jira heesaha midaan ugu dhegeysi badnaa oon xoog u dhegeysan inkastoo inay kala dhicin haddana heesaan xoog u dhegeysan jiray ayaa jirtay waxaa qaaday wax fahmo waxay oranaysaa anaa ku warwarayo wayahaaga doone ma adaa wariga helaa iweydiiya ruux kale waxa aan ku suganahay wase caadadiiso jacaylka waxsaaka laba wacada dhex yaalana midunbuu ku weeye kuwa laacin maaye nasiibkaaga waad heli kuwa laacin maaye nasiibkaaga waad heli anakayga waan sugi qof samraa ma waaye. heestaas ayadii waxaan kula way gabagabadii waynu taaganaha maadaama uu qalbigaagu weli raja naawelayo haddana waxaan doonaya inaan ku weydiiyo cabdalla yuusuf hanuuniya wuxuu ku heesay wuxuu yidhi jacaylaan lagula wadin waqtigaaga yuu lumin ruux laba wajiilaa hala dhigan ugu cado jacaylaan lagula wadin waqtigaaga yuu lumin adigoo og inaysan qofkaasi jacaylkaaga aanu kula wadin waa maxay waxa uu qalbigaagu ugu qanci waayey inuu noloshiisii kala qaato maadaamaanay noloshu cidna u istaagin? wallaahi de rajo maan ka qabaa maley isagun baan weli rajeynaya maase oran karaa yaa si walaan sidhe naftaada u qanci amba qofkan wuu kaa tegay adna go-aan qaado sidaa u dee u aamusay waxaa layidhi qof weyn tag lama idhaa laakiin wuxuu ku tagaa la tusaa laakiin wakaa ku tusay dee aamusabe yacni sabab la-aanna waka kaaga tegay waxaa eedan sheeganay inuu kaaga tegayne bal adna masaa sidiisa u qanacdid
waan isku dayay xataa baloog baan saaray waan adkeysan kara waa inta baloogta saarneyd xaalad adag baan ku noolaa yaa haddana waad ka qaaday yaa haddana waan ka qaaday waayo waxaa yaroo soo dhigaya aragtidiisaas ayaa waxaan ku dhahay ii dawahayd aada baad mahadsan tahay insha allah waxaan rajeynayaa kolley fariintan inuu arki doono insha allah adigana qalbigaaga ilaahay waxaan kaaga baryayaa kolley talooyinkii aniga dhinaca luuqa kugu siiyey gaarkuula taliyey insha allah waxaan ku rajeynayaa hadduu khayr kuu leeyahayna inuu ilaahay kuu soo celiyo hadduusan khayr kuu lahayna inuu ilaahay qalbigaaga kaaga masaxo wax khayr uu kuugu bedela mahadsanid hayola